كولجكا برشدا علوم تعافيماتك ماما أمينو كولجكا برشدا علوم تعافيماتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء ولي محمد حسين أنا أرديك قليل جبسة كولج ماما أمينة كانت ترسن أوركا أسمع وحرمانتي نهال كان كسو جديو أما كهذا المو إن جمنين. وصل قف كودا دقايق. سو مركي لقطة هنا إن سيد جدا وكلا قف قف إلا دقايق. ورد مهمة تقول إنه حتى قف إنا دقايق. The first one وقد ذلك سو حتى قف إنا دقايق. because هذا دقايق سيد وحلاقيها لقطة جمن إنا problem كلا قف كوسي كنتو سيدا إن قف كسو محلي حيل دينو كجوا أما إن نرفيا لجوان سو مركا إن هذا دقايق number one then لو إذا هوسة تيجي سو vantage كا لو إسكالك واحد أنا سجلا لو قيبيا فاشيال كي كرانيا لا لوكال قيبيا سجل then marka laga soo degto kan waxa la sternum laha sternumka waxa ku dhigan ribiska asagana dhowr nooc kala oo saddex loo sii kala qaybiyo la dhoo in kuugu horeeyo lafaha dhexe lafaha dabaasha iyagana waxa kala duubahanta waxay tahay sharaato oo hadhowtii aad iskaga xiriisid in glove maxaa la asiga manqas waxa kala u baahan tahay glove kale bandage oo hadhowtii qofka gacanta ugu duubeysid somehow cases qaar waxa jiraan qofku markuu jabo inuu dhiig jiro ama dhiig baxay jiraan soo dhiig marka iskaga celi sidoo kale inaad iskaga duubto bantaajadii then aad qofka kabitaan aad sameeyay close markuu yahay open ku kris badan yahay close soo wuxuu baahan qofka in isbitaal la geeyo oo dhakhtar la geeyo soo maadaama aad gargaar tahay aad intii raad adiga u sameyn kartid inaad dhiig bax ka joojisid soo qofkaas uu risk kale uu sii gelin ama سمينا براتيكا كسبتن جبنين سيدا قفك لوغو غرغار لها قف مركو uu jabo gargaar loo sii lahaa horaan waxa diyaarsanayna qalabkeena waxa u baahanahay alwaax ama baakad adeega daahilaysid qofku waa inaa ku wareejitaa adigoo aan sameeyeen dhaqdhaqaaq badan سمعنا دوبي قاعد جبت يعني دوبني وحسمينا شكالك شكالك مركز سمعنا الصحابة هنت هاي مصر هذا هي ليست فأما بنتاج تريانكل حق سورجيه قارته كدي بأسك حرة ماما أمينو كوليج مسد كدوا يتوسو يتبسي يتوسو يتبسي in skeletal system ka in magacyada hadda soo sheegno waxa loo kala qaybiyaa laba oo axial iyo pendular ka in axial ku yahay in scale-ka madaxii aan ribiski sternumki iyo maxaa la asiga vertebra ama spine-ki in sidoo kale iyo appendicular-ka waa upper limbiski lower limbiski iyo shoulder-ki and then magacyadiisa waxa kamid ah cranium-ka jawbone-ki clavicle-ki scapula-da sternum-ka ribiska humor-ka spine-ka belfikada iyo only radius and marka la fiiriyo gacantana ay tahay carpus-ka metacarpus phalanges femur-ka lugteeda patella fibula tibia tarsal metatarsal iyo phalanges so intaasoo idil iyagoo faahfaahsan mid walba shaqadu qabto iyo intii tire yihiin all of them waxa lagu bartaa anatomy and physiology balse ana waxa kaliya inaan mawduuc wax yar oo ku soo koobo waxa kale ka hadlaynaa waa maxay jabniin waa xaalad caafimaad oo dhacda markay lafta jabto ama ay dilaacdo ama ay burburto sidoo kale jabniinka waxay keentaa xanuun barar sidoo kale dhiig bax iyo waxay keentaa qaabka jirka ay u shaqeynaysi inay jirkii oo maxaa la yiraahdaa damage lafti in just markay jabto inuu u shaqeyn waayo sidii asagu u shaqeyn jiray iyo maxaa la yiraahdaa inta badan wax ugu badan oo keensadana waxa kamid ah inuu dhiig baxo sababo
noocyada jabniinka laba loo kala qaybiyaa ee kala yihiin open fracture iyo closed fracture. So open fracture-ka wuu open fracture-ka wuu ka risk badan yahay closed fracture-ka because open fracture-ka waa kana soo jeeti lafka markay kala jabto jis waxay ka soo falbixaysaa maqaarka dan waxa imaanaa qofka inuu dhiig badan ka baxo in maxaa la yiraahdaa xangulihiisa dhamaadaan iyo sidoo kale jeermiskii inuu si fudud u ku galo. So closed fracture-kana waa markii lafta kala jabto balse aysan maqaarka ka soo falbixin kaliya qofka inuu gudaha kaliya uu ka dareemo aan si fudud looma dareemi karo kan laakiin kan waa la arki karaa. waxyaabaha sabab jabniinka waxaa ka mid ah shilalka sida gaariga kale waxa kala sababi kara dhicitaanka xoog leh aan xanuuniyada lafta jilciisa macna xanuunaha qaad sida oo qofka duuqa oo kale osteoporosis-ka wuxuu ka tirsan yahay asagana xanuunada ku dhaca lafaha waaye iyo sidoo kale dagaalka iyo jugta qofka inuu dagaal kalo oo wax lagu dhufto baangad iyo sanbilada iyagana waxay sababi karaan inuu lafta ay jabto. noocyada ay lafta kala jabto horta laba nooc oo kala jabi kartaa lafta oo ah mid for example kale qofka duu soo qaato qori oo damac qorigaas inuu jibiyo soo marka qofka qoriga uu jibiyo waxa ka baxayaan maxaa la isqururuc yar soo marka duu damac qofkaas inuu isku soo celiyo labadaas laf isku soo naqsamay ileen waxa meesha ka banaan la ajligiisa laftu isku soo laabanayso taas waa nooc mid kale waxay tahay lafti marka la kala jibiyo oo hadhowt marka la damac in la isku soo celiyo in sida la isku soo celin karo soo labadaas nooc oo kala jabi karta kuwan waa kuwa sidoo la isku soo celin karo marka la jawaan ay kamid yihiin oblique fracture transfer fracture iyo longitudinal fracture kan kale oo qofka shiro maxaa la asay qururuc yar ay ka daadanayaan ama hadhowt u baahan in bar la geliyo kale waxa kamid ah green streak fracture ko maxaa la segment fracture comminuted fracture iyo spiral fracture. So mid walba iyo sawiradiisa mid waa oblique fracture ka la dhahaa wuxuu u jawaaya lafta sida horizontal oo kale si jiif u jawaaya lafta so hadhowtini si caadi la isku soo celin kara sidoodii iyagoo wax kabitaan iyo maxaa la yiraahdaa bir iyo loo baahnay asida la isku soo celina midkan waxa la transfer fracture lafta wuxuu u kala jawaaya si waxa la jiif oo kale macnaha si toosan u jawaaya midkan waxa la longitudinal fracture oo lafta inay dhir amalin oo kala jeexanto ama ay kala jabto. kuwana waa kuwa ugu riskiga badan ama qof u baahan in bir la geliyo oo ay kamid tahay green streak fracture-ka oo lafta inay geeska jabto oo geeska kalena iska haysato waxay u baahan tahay laftaas in direct iyada dhan si toos loo jibiyo dan labada gees meelaha qururucyada ka daadatay waxaas in meesha laga saaro because hadhowta deemida sida loogu dhafo waxay sababi kartaa inuu qof infection ka qaado in sida la jibiyo dan la simo kadib la isku kabo. Number 2 was spiral fracture asagu wuxuu u jabsamaa sida oo wareego kale uu jarmaya soo jeedin comminuted fracture kan asagana waxa waaye inuu qarxo lafti ee qaraxdo waa kala soo jeedin in lafta qaraxdo dan qururucaas ee dhowti dhawaato geesid qof wuxuu baahay in bir lagu dhajiyo dan maxaa la asay meesha space-kaas banaan soo buuxsano. Segmental fracture kana waa inuu loo meel ka kala jawaab iska halkii laf laakiin loo meel ka kala jawaab. calaamadaha jabniinka qofka jawal ugu garto waxa kamid ah xanuun daran inuu qofku u dareemo sidoo kale maxaa la yiraahdaa dhaqaaqa oo adkaato inuu qofka laftiisa dhaqaajiyo xubintu aanan u shaqeynin sidii hore kale in qaab dhismeedka xubinta ay isbedesho kale in meesha oo aad u bararto sidoo kale maqaarku isbedelo because maqaarku waxa sababta isbedelayso waxay tahay ilaa marka lafta jabto dhiiga imaanaysa dhiig waxay fadhiisanaysaa gudaha dan waxa qofka maqaarkiisu meesha isbedelayso waxay noqonaysaa buluug guduud ama madow. gargaarka loo sameeyo qofka intaanan galin gargaarka loo sameeyo waxa rabaa just waxyaabaha loo baahan yahay oo kale marka la rabo in gargaar loo sameeyo qof jawe waxa kamid ah in number 1 waxaad u baahan tahay alwaax ama shay adag aad ku celisid laftaas jabtay si aysan qofkaas oosan u dhaqaaqin. Number 2 waxaad u baahan tahay waxa la bandage waa triangular bandage
oo hadhow ku saacidayso qofka inuu gacantiisa hadhowti shakaal ugu sameeysid sababta loogu sameeynaana shakaalka waxay tahay maxaa la si uusan gacantiisa u horsanin aysan hadhowti problem kale iyo waxyaabahaas kale uusan u galin waxa kale oo u baahan tahay waxay tahay sharooto oo hadhowti aad iskaga xiraysid manqas waxa kale oo baahan tahay gloves iyo sidoo kale bandage oo hadhowti qofka gacanta ugu duubaysid somehow kiisaska qaar waxay jiraan qofka markuu jabo inuu dhiig jiro ama dhiig baxay jiraan soo dhiig marka iskaga celi sidoo kale inaad iskaga duubtid bantaajadii dan aad qofka kabitaan aad sameeysid soo inta ugu muhiimsan aad u baahan tahay waa intaas gargaarka loo sameeyo soo ugu horeyn markuu gacanta jabaya waa kana number 1 in la sameeyo kala qofkii lawada maxaa la alwaax in labada dhinac lagu kala celiyo oo just la siimo laftiisa oo qabsanto then lagu duubo bandage-kii marka lagu duubo kadib in loo sameeyo qofka shakaal oo geedka qor lagu xiro triangular bandage-kii si uusan qofku u dhaqaajin soo markay lugtay tahayna in sida jiddan oo kale qof horta in la dhaqaay horta muhiimadu ugu weyn waxay tahay qof inaadan dhaqaajin the first one ku dadaalayso waxay tahay qofkaas inaan dhaqaajin because haddii aad dhaqaajisid waxa laga yaabaa laftaas jaban inay problem kale qofka u sii keento sida in qofkaas uu maxaa la yiraahdaa xidid inuu ka go'o ama in nervayaal ay go'aan soo marka inaadan dhaqaajinin number 1 then aad lawada hoos aad ka geliso bandage-ka then lawada alwaax aad kaga celiso lawada gees ama sheeyasha adag adiga haysatid in lawada gees uga celisid then aad ku xirto qofkii kadibna aad lugtiisa kor aad uga qaado oo hoos aad wax u geliso si uu kor u qaadmo because gacanta marka xirin waxaan u sameeynaa qofka maxaa la yiraahdaa waxa ugu xirna qofka shakaal u sameeynaa soo marka lugtana waxaan sameynaynaa qofka lugta kor looga qaadaa soo eegeeda ma sentiin mama amino college masadkeedu waa itu soo itabsi